شكري ويو وصل معنا والله تعبتو وجينا شكري ويو والله تعبتو وصل معنا maantana waa maalin kale oo saxaafadu tukri noogu timiday wadadii tukri ayay noogu timiday maanta waa maalin barwaaqo ah waxaan bilownay abaar baan bilownay wadada waa barwaaqo tiiftii abaartu ka tagtay ha jirto xoolo la'aan ha jirtay waa idinka arkaya dhulka greenki iyo wanaaga dadku maanta wuu badan yahay abaartii waa la kala lunsanaa maanta ilaa 120 qof ayaa halkaa ku shaqaynayay imigay soo rawaxeen way bariiseeyeen waxa weeyaan wadadii meel fiican bay maraysaa waan foororsanay oo kadartii waan foororsanay laakiin dee dhul badan oo adag baa noo hadhay waxa weeyaan moral fiican baa saaka lagu shaqaynayaa wadadu meel fiican bay maraysaa waxa weeyaan war wadadaasi in la nala soo dhammaystiro markii horena idinkaa noo bilaabay waxa weeyaan inay dhammaanaysana waan inigu ballan qaadanaa oo ay dhammaanaysaa si fiican insha allahu walaalayaal waxaan u baahnay odayadii waxaan ag joogaa maxamuud reerkiisu meelaan naga dheerayn buu imiga yaallaa baabuur ha loo raaca haddii la yidhaana caawa maqhribkuunbaa la tegi waxaan u baahannahay waddada sidii awal baad nooga soo caawin jirteen inaad nooga soo caawisaan weliba dadkii degaankan waxaa la yidhi toosni law galgasho tolla weerkayaabaa layidhi tolkeen awalba weyna caawinayay war dadkeennii degaankow ama wiil ahaato ama gabadh ha ahaato waddada waan inigu dhaliilayaa tolka kale ay nooga roon waddada wax ka soo tara waddada nala soo dhammeeya shirweynaheennii waa bisha oktoobar 3 inta ka horraysa inay waddadaasi noo furantaan doonannaa tolkayana waxaan leenahay awalba idinkaa nala waday idinkaa nooga fiicnaa waddadaoo dadkii degaanka u dhashay waddada tolka kalea kaga fiicnaa waxa weeyaan sidaada walba noola wadeen noola wada waxa weeyaan waddadaa cid waliba way maraysaa cid gaarihi ma leh ilaahay unbaa noo diro annagu waanu dhaqaaqnay laakiin dee cid gaarihi ma leh waxa weeyaan baki iyo gebile iyo hargeysa intaba waa u weji dadka ugu badan baa ka dhaadhaca tugrigii dabadeedna lagama qaadin dhagax lagama qaadin wataa maanta ilaahay baa inoo diray waan shaqaynanaa meel fiican bay maraysaa waxa weeyaan odayadaa hadli doona tolkayoo waddada sidaada walba wax noogu soo tarasee noogu soo tara dadkii degaankowna canaan baan inii soo jeedinayaa waxa weeye adduunyada kulbalayn baa lagu joogaa kulbalayn meeshan la yidhaahdo tukri kolka la leeyahay tukri dee tukriya wakhtigee waddankeenna haysan jirtay dee ninkii taariikhayo hore unbaa garanay kadib dabadeed waxaa wax laga qabtay waddo gaadhi maro iyo tu awr maro midna arlada kama furna dooxa midhireed dawga mara ee halkaa garbadadar ka taga iyo waddada cad ee bari in badan naga xigta inta u dhaxaysoo dhan wuu xidhan yahay ka dhintay meel la maryo lama helo u dhakhtar la geenaya meel lagu qaada lama helo wax dhakhtarahoo meesha u yaalaana ma jiro wax xitaa isgaadhsiintaa go'an oo dhulkaasi haba yaraatee wax moobilna ka dhicin dhulkaa haddaba caynka ahaa ee tasada ah iska qabyoobay cidda maanta ilaahay u soo diray ee duqaydaa maanta halkaa suldaanku madaxaya ka hadlaysa ee alla u soo diray ayaa mahad weyn leh ilaahay baana mahad ee inta soo gargaartay iyo intaan imika codanayna inayna soo gargaartaana mahad bay leeyihiin waxaanse leenahay waad gaabiseen walaalahayo waad gaabiseen raggii halkan u dhashayoo waad gaabiseen wargaabintaa ka baxa oo horow soo tallaabsada amba hay-ada keena amba idinku xooggiinna keena idinkaa guriga leh oo u dhashay dhulku lama kala le waddo kolka la yidhaahdo ka ceerigaaba ka yimid iyo ka haddii la yidhaahdo jabuuti ka yimid intaba waa u bannaanta oo u mara laakiin intii kolkaa ka tacab gashay ee degaan weliba ku sii ah ayuu xil weyni ka saaran yahay oo cishaba dhagixii ku soo dhacay inay ka qaaddo weliba laga rabaa joogta waxay ahaanaysaa ilaa intii alla ka dhigo meeshu way hawl badan tahay hawl weyn weeyaan intii noogu adkayd ayaa hadhan markii hore beelaheennu waxay bilaabeen 75kii 1975kii baa la bilaabay qabyad dacalkana waa laga soo bilaabay korkana waa laga bilaabay intii ugu xoog badnayd ayaa hadhanayd markaaba
intii kalena amba abaara ha gooyaan amba roobab ha gooyaan amba waqti waa ha raago sidaa dhul aan weligeed la taaban ba u egaatay wixii oo dhan waa badankeega waa la soo shaqeeyey inta ugu adag ee buurta aan ku jirno iminkaan madaxa ka galleen ku jirno ayaa ugu quwad badan intaana insha allahu waynu dhammaynaynaa dee maskax iyo maal iyo muruqba ha laysku daro saasaan idinka codsanaynaa walaalahayagaan meel walba noo joogo dibad iyo dalka midkeed joogtaanba sidaasaan idin fariintaasaan idin soo dirannay waanad mahadsantihiin cali ilaahu boloy baydh maanta amiin berina ilaahu boloy baydh dabadeedna ilaahu boloy baydh kulyoonba ilaahu boy waxa la yidhaa walaalaha odayada hadalkooda wayniga maqlay inina way biirin doontaa inina dee way iska dayn doontaa oo hadalka maanta oo dhan lagu jiri maayo sawir muuqda dee su'aal ma doonaa la yidhi ciidanka waad arkaysin duqaydana waad arkaysin culimadana waad arkaysin meesha aan joogno dadka maanta aad ku arkaysin dadkii xoolaha dhirki jiray buu dee xoolaha waqti baa qaaday hamin kolkii xoolaha aan hayna annaan hayn baa timiday kolkaan xoolihii aroori uga bax rabbina wuu jiraa ragna wuu inoo maqan yahay baan lahayn dee rafasho badan baa la soo galay oo hamidii lagu galay wixii naga itaan roonaaday baa amba na helay amba dambeey waxaad u egtiin islaantii kimis bay dufto xabad bay ka tagtay lala sidaa baan inagu tirinaynaa haddana cid kale tolkayow laynigama haysto wixii kale waa biiru uun hadduu islaam soo galo iyo hadday hay-adi soo galo xalaal ninkii lebaa dhaqdadeed taasi waa sidaa sida kale dawga maanta aan joogno tukri baa layniigu sheegayaa tukri caanoolaa la odhan jiray iminkana caanihii caano ka badan baa ka muuqdo dee rag buu u baahan yahay maluu u baahan yahay muruqna wuu u baahan yahay dawga noogu dhow midhidh baa la yidhaahaayoo galbeed buu naga xiga galadhigu madaxuu kaga tagaa ilaa darkiisuu socdaa roobabka isku helaa daruuri kolkay daado gaadiidka wax badan buu qaadaa ummadda fuushanna wax badan baa ku dhintay dhan looga baydhana male dawga maanta aan joognay hamiduu noo geysa nagana itaaroon daad meel looga baqa meesha dhow waxaa la yidhaa halkani waa dhuun halkani waa af iyo gacan baa la yidhaa xeeb ninkii u socdo wuu u dhow yahay etoobiya ooga ninkii u socdana wuu u dhow yahay hareeraha ninkii u gudbayo dhul istaraaji oo nin waliba meeshuu doonayo uga bayro yuu leeyahay dee dawga maanta sidaabaa hoodaha dawga maanta aan joognay hamiduu nagu kacday ragna waa u maqan yahay aan leenahay cabashadeeda haddii ilaahay dhaaho laynii sheegayaa ay tahay kolkaa waxaa weeye dee abaaraha dhul lagaga baxay baa jira laakiin ilmuhu hadduu bugtaan noqdo hore uma koro halkaa iminkaan joogno wixii ka hooseeya abaarihii way haystaan laakiin sida roobkuu eg yahay iminkaan la rajaynayaa inuu hele irmaankiisu yahay halkaan joogno wixii dusha ka heganaan inay leeyihiinba daruuraha lagu helayoo qarqar noolaasho aad looma noolaana qarqar noolaashaa dee lagu dee dadka 3 abaarood baa soo maray halkan jooga maanta iyo intii kale alla ku daro 3 abaarood oo isku xigtaa soo maray oo xoog abaarta u horeeya haylaal la yidhi ta ku xigtana haddii ilaahay hurgufaa la yidhaa abaarta u dambaysa saddexaadna kama kacaan la yidhaa deedoo beerka dhulka wax u saar itaan xumadeedii baa la leeyahay dee ilaahayna maanta wax fiican baa laga rajaynayaa amba la arkaya haddaba waxa weeye walaalahayow dee hadal badan bul ma buuxshaa la yidhaa sidaan u haminay iyo sidaan u muuqanno iyo sidaan u rafanayno iyo sida dawgaasi gaax yahay ee Soomaaliya danteeda u yahay ee Somaliland danteeda u yahay ee ka degan dantiisa u yahay hal loo arkadeed hal la soo caawiyo waxa la nagu soo taro aan laga wahsan السلام عليكم وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة وللجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات قاضي الحاجات غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 والمسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.